wasiirka wasaaradda amniga gudaha ee dowlad goboleedka Jubbaland General Yusuf Hussein Cusmaan Dhuumaal ayaa xafiiskiisa ku qaabilay taliska qaybta labaad ee ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa Kenya ee ka howlgala deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland. Wasiir Dhuumaal iyo saraakiisha ka socday taliska qaybta labaad ee ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa Kenya ayaa waxa ay ka wada hadleen wada shaqaynta laamaha amniga dowlad goboleedka Jubbaland iyo ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM. Inta uu socday kulanka ayaa waxa diiradda lagu saaray dhowr qodob oo ay ka mid ahaayeen wada shaqaynta ciidamada nabad ilaalinta AMISOM iyo kuwa dowlad goboleedka Jubbaland, dib u habaynta iyo dayactirka xarumaha xafiisyada laamaha amniga ee kala duwan ee Jubbaland, dib u howlgelinta xarunta tababarka ciidamada Jubbaland, sugidda amniga doorashooyinka oo iska kaashanayaan ciidamada AMISOM iyo kuwa amniga Jubbaland. Wasiirka wasaaradda amniga gudaha ee dowlad goboleedka Jubbaland General Yusuf Hussein Cusmaan Dhuumaal oo warbaahinta la hadlay kulanka ay dibad jooga ka ahayd ayaa ka warbixiyay waxyaabihii ay ka wada hadleen saraakiisha uu qaabilay. Sidoo kalena waxa ciidamada ammaanka ee dowlad goboleedka Jubbaland faray in ay isku diyaariyaan sugidda ammaanka doorashooyinka iyo adkeynta ammaanka wadooyinka ee degmada Kismaayo inta lagu guda jiro doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. ciidamada AMISOM oo caawiyo ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland iyo kuwa federaalka waxaan isku afgaranay in difaaca dibadda aad loo adkeeyo si kooxaha nabadiidka aysan maaragtay ugu soo xadgudbin arrimaha doorashooyinka khalkhalna aysan u gelinin. arrintaas si fiican baan isku afgarannay haddii ay noqon lahayn ciidamada AMISOM oo kaalmeeyo arrimaha amniga ee dowlad goboleedka Jubbaland iyo kuwa qaranka Soomaaliyeedba, iyo haddii ay noqon lahayd kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Kismaayo, iyo haddii ay noqon lahayd kuwa Jubbaland oo ah ciidamada sida gaarka u dababaran ee daraawiishta. qodobkaas si fiican baan isula garanay. qodobka labaad waxa weeyo dowlad goboleedka Jubbaland waxay u diyaar garowday arrimaha doorashooyinka qaranka oo qaybaha lagu qabanayo dowlad goboleedka Jubbaland, qaasatan magaalada Kismaayo, qayb ahaan aqalka sare oo shala uu soo saaray madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland qaybihii ugu horeeyay. qaybaha labaadna aan filahayo maalmaha soo socda ilaa biri iyo saadaba inuu soo saari doono. arrintaas si wanaagsan ayaa loogu diyaar garoobay oo ciidamada amniga dowlad goboleedka Jubbaland ay ugu diyaar garoobeen, kuwa booliiska dowlad goboleedka Jubbaland iyo kuwa AMISOM labadaba, iyo ciidamada kale oo nabad sugidda iyo sirdoonka dowlad goboleedka Jubbaland. dhammaan ciidamadaas aan soo magacaabay waxay ka shaqeynayaan gudaha iyo doorashooyinka ay ka shaqeynayaan. kuwii aan horay u sheegayna waxay ka shaqeynayaan xiritaanka goobaha dibadda ah iyo difaacyada kore. magaalada Kismaayo ayaa maanta waxaa la filayaa in ay ka dhacdo doorashada aqalka sare xubnaha ugu horeeya 4 kursi, waxaana sidoo kale soconaya diyaar garowgii ugu dambeeyay ee loogu jiro doorashooyinka kale. Cabdilmajiid Cabbaas Aadan, Fantastic, Telefishinka Kalsan, Kismaayo.